kusoo dhawaada daawadayaal Qool Media Tv waxaad ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan xogta qarsoon Emirates Carabta oo Somalia xayiraad saaray dagaalka itoobiya iyo xasuuq la soo sheegayo Libiya iyo qaramada midoobay kusoo dhawaada mar kale Qool Media Tv ha inaga hilmaamin daawada inaad like inoo saarto muuqaalka sidoo kalena aad faafiso mahadsanid kusoo dhawaada mar kale xogta qarsoon ee Qool Media Tv dowladda isotaga Emirates Carabta ayaa mar kale xayiraad cusub ku soo rogtay dalal ay ku jirto Somalia sida ay warinayso warbaahinta gudaha ee dalkaasi go'aankan ayaa lala xiriirinaya soo laba kacleynta cudurka safmarka ee coronavirus oo horey saameyn ugu yeeshay dalal badan oo ku yaala caalamka wadamada uu saameynayo go'aankan cusub ee Emirates ka soo baxay ayaa kamid ah Somalia Kenya, Yemen, Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Suuriya iyo Turkiga. Xayiraadda la saaray wadamadan ayaa la sheegay inay socon doonto ilaa amar dambe inkastoo aan la shaacin waqtiga rasmiga ee la qaadi doono. Emirates ayaa Soomaaliya la leh xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed waxaana la sheegayaa in go'aanka uu saameyn doono muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u safra dalkaasi. Si kastaba Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka ugu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dowladda Soomaaliya. Aqalka wakiilada Mareykanka wuxuu meelmariyay sharci taageeraya xasiloonida Libiya oo khatar gelinaya kuwa hurinaya colaadda iyo khilaafka ka jira Libiya. Libiya waxay dhibano u tahay sanado badan iska horimaadyo hubeysan oo sababay khasaarooyin naf iyo maalba leh. Golaha wakiilada Mareykanka ayaa meelmariyay hindisa sharciyeed taageeraya xasiloonida Libiya kaasoo ujeedkiisu yahay in la xoojiyo doorka diblomaasiyadeed ee Mareykanka oo ku leeyahay dalka iyada oo la siinayo taageero lagu abaabulo doorashooyinka dhici doona sanadka soo socda si gacan looga geysto dadaalada in xal siyaasadeed la gaaro iyo in la ciqaabo dhinac kasta oo huriyo colaadda. Wakiilka Mareykanka wuxuu tilmaamayaa in horumar laga sameeyay sugidda ka bixitaanka hubka iyo ciidamada shisheeye iyo calooshoodu shaqaystayaasha ka soo jeeda Libiya ayna weli adag tahay in la gaaro. Isaga oo sharaxaya ayaa yiri waxaa muhiim ah in halkan laga bilaabo meelmarinta sharciga oo ku baaqaya kaalin firfircoon oo ah Mareykanka inuu gacan diblomaasiyadeed ku yeesho bixinta gargaarka bini'aadanimada taageerida doorashooyinka mustaqbalka iyo tallaabooyinka xoojinaya wada xaajoodka. Wakiilka qaramada midoobay waxa ay sheegtay in sharciga ciqaabtiisu ay dhaqan galayso haddii ay dhacdo burburka xabad joojinta taasi oo ku dhiirigelinaysa dhinacyada dagaalamaya in ay yimaadaan miiska wada hadalka halkii ay dib ugu laaban lahaayeen goobihii lagu dagaalamay. Maamulka Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu ku eedeynayaa kacdoonka TPLF-ta falal dambiyeedyo waaweyn oo ka dhacay dhulka Tigreega kaasoo lagu beegsanayo dadka rayidka ah. Hadalka dowladda Itoobiya ayaa imaanaya maalin kadib markii ay soo saartay waaran qabasho ah oo lagu soo qabanayo 76 sargaal oo militari ah oo la sheegay inay gacan saar la leeyihiin hogaamiyaasha Tigreega ah. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in fallaagadu ay galeen dambiyo culus kadib markii uu dagaalku ka qarxay bishan waqooyiga gobolka Tigreega iyada oo la taliyaha madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ee arrimaha dibadda uu ku baaqay in si weyn loo ilaaliyo dadka rayidka ah. Colaadda waxaa ku dhintay boqolaal waxaana u qaxay 30,000 oo qaxooti ah wadanka dariska la ah ee Suudaan waxaana su'aal laga keenay in hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika Abiy Ahmed uu wada qabsan karo qowmiyadaha iskhilaafsan ee ka jira wadanka labaad ee ugu dadka badan Afrika ka hor doorashooyinka qaranka ee dhici doona sanadka dambe. Bayaanka dowladda Itoobiya wuxuu tixraacayaa warbixino sheegaya dilal qowmiyadeed oo ka dhacay magaalada Maikadra oo ay diiwaan gelisay kooxda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International toddobaadkan. Dadkii ka badbaaday weerarka ayaa u sheegay cilmi baarayaasha Amnesty in maleeshiyo gacan saar la leh dowladda deegaanka Tigreega ay dileen dad aad u tiro badan ama xitaa boqolaal rayid ah
oo qaarkood qowmiyadda Amxaarada ay ka soo jeedaan. Dhanka kale, dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayay aad u adag tahay in la ogaado halka ay wax marayaan. Tigreega ayaa guulo waaweyn sheeganayso, balse cid xaqiijin karto ma jirto. Waxaa go'an internetka, labada dhinac ma ogola warbaahinta inay si toos ah u soo tabiso dagaalka socda.